waxaa soo ifbaxay khilaafka u dhaxeeyo madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad oo ah musharaxa madaxweynaha maamulka Galmudug miiska wada hadalka wuxuu la imaaday in doorashada Galmudug ay noqoto mid furan halka ay doonayso dowladda federaalka inay halkaasi geyso liibaan shulq oo ku tartamaya xisbiga kaarka JSB waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo kulan maanta la doonayo inuu ka dhaco filla Soomaaliya kaasoo looga arinsanayo xaaladda deegaanada maamulka Galmudug marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu ay ku aasaysan tahay 29 bisha shanaad ee May sanada 2020 haddii aynu ku bilowno waxa soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad kaasi oo ku aadan arinta maamulka Galmudug Mahad Maxamed Salaad taliyaha NISA iyo hay'adda nabadgelyada qaranka NISA waxa uu doonayaa in doorashada ay markaasi Galmudug ay noqoto mid furan oo si cadaalad ah loogu tartamo halka dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay kursigaasi u xirto liibaan shulq oo ah ganacsade si weyn looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug kaasoo ku tartamaya xisbiga kaarka JSB oo ah halka shakhsi ay dowladda ay wadato inuu halkaas ku tartamo hase ahaatee Mahad Maxamed Salaad taliyaha NISA oo ah musharax isaguna u taagan inuu si weyn u noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in doorashadan ay noqoto mid furan oo loo tartamo oo markaas lagu kala calaf qaado balse dowladda way ka aragti duwan tahay arintaasi waxayna sheegtay in kursigan ay doonayso inay markaasi geyso waa liibaan shulq oo ah nin ganacsade ah oo looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug رئيسل وزراء الصومالي ومركز حمزة عبد برة يتليها نسا مهد محمد سلاد مدحينا الصومالي حسن شيخ محمود وكل ما قارقارة أي مقالة عاصمة مقدشة كوية شين أي أولي اسم رواء وكتاقين هاي maanta Jimcaha ayaa waxa la qorsheynayaa inuu kulan ka dhaco magaalada caasimadda Muqdisho taasi oo lagu doonayo in markaas looga hadlo xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada maamulka Galmudug wixii ka dambeeyay markii Axmed Cabdi Kaariyo qorqor oo ku laabtay deegaanada maamulkaasi taladana laga wareegay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galansi awooda maamulka koonfur galbeed waxa soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed iyo Axmed Cabdi Kaariyo qorqor oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi waxa uu sheegay in markaasi uu doonayo in doorasho hufan ay ka dhacdo deegaanada maamulka Galmudug si cadaalad ah loogu tartamo hoggaanka ugu sareeya ee maamulka Galmudug asaatee dowladda federaalka Soomaaliya oo arintaasi ka duuleysa ayaa waxay doonaysaa inay kursigaasi geyso liibaan shulq oo ah ganacsade si aad looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug Mahad Maxamed Salaad oo ah markaasi taliyaha NISA ayaa isaguna waxa uu doonayaa in markaasi uu ku tartamo waa xisbiga JSB asaatee dowladda waxay soo dhaweynaysaa liibaan shulq oo ah ganacsade si aad looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug Mahad Salaad waxa uu sheegay in markaasi doorashadan ay noqoto mid hufan isla markaana waxa uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu dhameeyo arinta ka taagan deegaanada maamulka Galmudug hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya waxay si weyn ay markaasi u doonaysaa inay si awood ku muquuniso doorashada ka dhacaysa deegaanada maamulka Galmudug oo ah maamul goboleedka saddexaad ee gacanta ku haysta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka taagan xiisad cakirnaan oo markaasi u dhaxayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qorqor oo ku sugan deegaanada maamulka Galmudug waxa uu inta badan gacanta ku hayaa maamulka Galmudug magaalada Cadaado iyo magaalada Dhuusamareeb ciidamo badan oo isaga taabacsan ayaa ku sugan halka dowladdu ay ciidamo badan ay geysay duleedka magaalada waa taliska 12aad ee ciidamada gorgor halkaas ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan Mahad Salaad iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre iyo xubno kamid ah guriga wasiirada ayaa maanta Jimcaha waxa la rajeynayaa inay kulan ku yeeshaan magaalada caasimadda Muqdisho kaasi oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee ka jirta deegaanada maamulka Galmudug haddaba waxyaabaha ka soo kordha daawadayaal xiisadan ka cusboonaanaysa maamulka Galmudug barnaamijyadeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa aad baad mahadsantihiin